badanna lahayd oo waayahan aan hawada ka yar maqnayn doodan oo aan kaga wada hadli doono qodobo muhiim ah oo xambaarsan danaha shacabka Soomaali galbeed ama dowlad deegaanka Soomaalida ama ogaadeenyanimba si uu u yaqaano dooda waxaa ka qayb galaya xasan ugaas oo loo yaqaano xasan ducaale oo loo yaqaano xasan jabhad ahaana xubin ka tirsanaa UWSLF oo ku bartay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed cilmiga dhaqaalaha haddana ku sugan Canada iyo Axmed Cabsiye oo ah xogayaha guud ee ururka Siraaj iyo Deeq oo ahaa gudoomiyihii degmada Dhanaan ee is-casilay waqtigii Cabdi Ilay dooda waxaa ka qayb galaya saddexda mudane aniga oo Maxamed Haybaan waa idin daadihin doonaa ku soo dhawaada mudanayaal waan dhownahay inanka mahad baa leeyahay waan soo dhownahay journalist Haybe okay sorry mahad waxaan ku horeysiinayaa gudoomiyaha ururka Siraaj oo ururka oo madaxweyne Mustafa xitaa hore uga tirsanaa jiray I don't know goray kala baxeen ma aqaan mise wali way isku leeyihiin miya ma aqaano ku soo dhaw barnaamijka waxaan ku weydiinaynaa bal xaaladda guud ee wadanka sida uu macnaha hadda yahay adiga oo ka bilaabaya khilaafaadka hadda jira ee ku saabsan madaxda dowlad deegaanka Soomaalida بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي dhamaan ummadda Soomaaliyeed hortana dhageysanaysa iyo dhamaan bahda Ramaa TV iyo Maxamed Haybe wariye Maxamed Haybe waxaan leeyahay horta marka hore waa salaamantiin hadii aan halka uga sii gudbo waxaan rabaa inaan horta uga faa'iideysto inaan halkan ummadda Soomaaliyeed aan uga digo cudurka coronavirus-ka kaasoo ah cudur ummadda Soomaaliyeed hadii uu ku soo wajahan yahay ay laga yaabo inuu halis aad iyo aad u badan ummadda gaarsiiyo hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aanu ka qaban marka maanta inaynu ka hadalno waa wax nasiib darro ah arrin siyaasadeed waxay ahayd inaynu maanta ka hadlayno sidii cudurka coronavirus-ka ummadda Soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa laakiin ummad shakhsiya waxba kama qaban karaan dawladii ay idmadeen bay ahayd inay wax uga qabtaan maadaama dawladii ummadan wax ka qaban lahayd ka hortagi lahayd diyaar garowga ka sameyn lahayd ummadda dhaqaale iyo siyaasad iyo macnaha diyaar garow iyo caafimaad iyo adeegba u diyaarin lahayd ay tahay mid fashilan oo ku mashquulshay xakirnaan siyaasadeed maalin walbana ay ceebaheeda siyaasadeed ka soo daba dhacayaan baa waxay kaliftay maanta inaan ka hadalno arrin siyaasadeed laakiin waa wax laga naxo inaan maanta arrin siyaasadeed meesha miiska intaan soo fadhisanaa aan aynu ka discuss garayno laakiin waxaan jeclaan lahaa maadaama ay lagama maarmaan tahay in la helo dawlad xilligan dhaafisa ama ka gudbisa cudurkan halista ah ee ummadihii waaweynaa ay albaabada xidheen dhaqaalahoodu uu cirka maraya dhaqaalahoodii uu dhulka ka jabay in maanta ummadeena oo dhaqaale badan lahayn uu ku soo wajahan yahay inaan ka hadalno maadaama oo dawladoodii ay tahay dawlad aan jirin la oran karo bay tahay inaan ka hadalno taasaan kaga gudbayaa haddaan u soo gudbo cakiraadda siyaasadeed oo aad saaxiibadayda kalena u dhaafi karo dee waxa idiin muuqata oo aad arkaysaan maanta inay ceeb kiirar ceebeed oo iska soo daba dhacaya ay jiraan hogaankii nabadgelyada oo shalay tolo lahaa nabadgelyadan ku guulaysanay baa la eriyay Cabdicaalid waxa lagu bedelay dad kale waxa la eriyay maxaa la bedelay muxuu ahaayay gudoomiye jaamacadda madaxii xisbiga ee matalaya Addis Ababa matalaya baa la qoray ma garanaysaa wasiiraa la eriyay wasiiraa la bedelay khilaaf siyaasadeed oo xisbigii meesha lagu daray oo aanu ahayn xisbi aan taageersanayn oo aanan ogolayn xisbiga BBA Ethiopian and-net ka raadinaya anigu waxaan taageersanahay nidaamka qoomiyadaha ee Ethiopia hadii nidaamka la qaadanayo maadaama wadankeenu dhibaato iyo gumaysi ku jiro muddo badanna uu gumaysi iyo dhibaato ku soo jiray marka siyaasad cakiran oo ballaaran oo inaa waqti dheer la qaato ka hadalkeeda yaa meesha taala sidaas daraadeed waxaan jeclaan lahaa bal saaxiibada inaan u hambeeyo oo aan ka bilaabo khilaafkani muxuu salka ku hayaa khilaafku wuxuu salka ku hayaa hal arrin denominator baa jira waxay Soomaalidii hore ma oran jirtay dab qiiqay qoriga baa la tuuraa qoriga la tuuro daqiiq uu dhamaan lahaa marka khilaafkani maadaama oo wax kasta la sameeyo la bedelay oo kan
وقيقي دمان لا يهي قيق وهل قرية دي هل قرية الماشي على قصاران قبانو مركا وحن سليه ملا هل قرية قيقيا دوا ولكن مدحوي كسمها مدحوينها ويا أنبان قبا عكرانت السياسة لأن هل قيقي سوا هل كاسن قبا وانا ما تنتين ذات كلام اوكي ururka siraaj aan ku soo noqonaynaa adiga su'aalo muhiim ah oo kula yeelan doona waxaan ku soo dhaweynayaa xasan ducaale oo xasan jabhad halgamaa deegaanka ka soo jeeda in badan ka soo shaqeeya arrimaha deegaanka iyo jabhadihii kala duwanaa khibrad weyn u leh macnaha arrimaha hadda taagan xog ogaal ah balan ku horeyno xasan xaaladda hadda waddanku uu ku sugan yahay coronavirus hadda waxa ugu muhiimsan ee warbaahinta caalamka ay ka sheekeynayaan meel walba ood fiiriso waa corona iyo sida loola tacaalay iyo waddan walba marka qaabka uu yahay marka bal innagoo gobolkeena isha ku fiirinayna sida uu u saameeyay iyo wixii diyaar garow ah jira iyo sida ay kula muuqato arrintaas inaan wax yar ka wareysanaa rabnaa bismillahir rahmanir rahim bahda Rama TV iyo gaar ahaan wariyaha Haybe iyo asxaabta kale ee aanu panelka ku wada jiraba iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga Itoobiya ee na dhageysanayaba assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh baan idin marka hore inagu shacabkeenu waa shacab runtii dhibaatooyinka maanta Mareykankii oo quwadaha adduunka ugu waaweyn ah ragaadiyay shacabkeenu banaanka u jeefaan wuxuu ahaa shacaban marka horeba haysan xaaladaha asaasiga nolosha dadka bini'aadanka oo ay ka mid yihiin biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada kolkii horeba arrimahaasi ma aynan jirin haddana anigu waxaban qabaaba sida hadda dad badan ay soo warinayaan xaqiiqda ah xukuumaddii ninkii dictatorka ahaa ee Cabdi markuu meesha ka baxay servicekaasi adeegyadaasi intooda badan inay meeshaba ka baxeen dadkeenu way u nugul yihiin HCM-yadii ama rugihii asaasiga ahaa ee qabalayaasha ama tuulooyinka ama magaalooyinka samaysnaay ma aanay shaqaynayn sidii xukuumaddii hore meesha uga baxday intooda badan sidaan warka ku hayno deegaanada qaarkoodna anaaba ka warqabo maba jiraanba maba shaqeeyaanba wayna burbureen duruufo kala gedisan ama dagaalaha ku burburaan ama haba laga qaxo ama dadba ha isku qabsada ee meelo badan arrimaha adeegyadaas maba shaqeeyaan waxbarasho iyo caafimaad midna ma jiro maxaad u malayn haddii magaaladii Jigjiga ay dadku biyo la yihiin oonan biyo lagu haysan maxaad u malayn meelaha kale ka fogna waxyaalaha ugu muhiimsan ee hadda cudurkan soo kordhay ee laga hortay karo waxa kamida dadku inay wacyigelin la sameeyo wacyigelinta ugu horeysana qofku nadaafadiisa kamida nadaafadiina hadeen biyo la cababa jirin oo dhulkiiba biyo lahayn biyaha yar dadku ay cabayaan inay 3-4 jeer ay baxaan ay gacmaha ku wada dhaqdaan family-ga 8 qof ka kooban ama 9 qof ee Soomaaliyeed ee deegaanka ku nooli ama kuwa barakacyaasha qaxootiga ku jira caaga yar ee biyaha ah ee la wareegaya booyada ka soo dhaansanayay waxay ku farxashaan ma haystaanba oo ay kaga hortagaan haddii uu ku dhacana de wax adeego kale inaan helayna waan ogsoonahay marka dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka isbarkani ay haystaan oo uu saldhig u yahay dhibka haysta gumaysiga Itoobiya ay muddada qarniga ku hoos jireen dadkaasi waxaan aaminsanahay in ay dhibaatada haysata Ilaahay uu ka saari karo ee xukuumad iyo dawlad iyo dad u hela inaynan haysan baan qabaa anigu marka taa intaasaan kaga bixi lahaa okay adar xasan ducaale su'aal kale ayaan ku weydiinayaa su'aashaasi waxa weeye waxaad ka hadashay xaaladda wixii ka jira waddanka diyaar garow ama xumaada ama hasanaado bal haddii ood xog ogaal tahay dadka
aadka ugu liita hadda arrintan corona sidaan ogsoonahay oo meelo badan oo ku urursan aadna u tiro badan waa barakacayaasha gaar ahaan qoolaji iyo meelo kale oo barakacayaal deegaanka ay ku sugan yihiin barakacayaalkaas waxay u baahan yihiin corona ka hortagitaankiisa keliya ma aha waxyaaba badan bay u baahan yihiin oo aynu ka sheekayn doonaa wax diyaar garow ma jiraan ama wacyigelin ah ama ka hortagitaan oo barnaamijyada ka hortagitaanka haba yaraadee oo xerada qoolaji laga sameeyey ma jiraan runtii anigu meel fog baan joogaa oo arrintaa details ma hayo laakiin waxaan arkayay maalin dhoweyd gabadh socotay oo meesha xerada tagtay baan arkayay marka qaarkood aad dhaliil baad sheegtay waa inaad feer noqotaa gabadh baan u malaynayaa federaalkan ka socdaa lahayd baan ku arkay xelada qulluji joogtay oo lahayd waxoogay agabaan wadaa waan arkayay ma hayo detailska dadka barakacayaasha ah ama xerada weyn ee qulluji dadka badan ku urursan yahay jooga ama dadka kale eeg qaxootiga ama barakacayaasha dadka deegaanka barakacayaashii qulluji waa meesha ugu weyn dadka u badan joogo laakiin dadku waxay joogaan meelo aad u badan bay joogaan marka mooyaala laga soo bilaabo dad barakacayaala jooga gobolka mooyaale deegaanada mooyaale dad barakacayaala jooga saalaxaad iyo deegaanada dad barakacayaala jooga fiiq agagaarkeeda dad barakacayaala jooga gobolka faafan dad aad u tiro badan oo barakacayaala oo aad u tiro badan oo xataa aan basic necessity-ga bilaadanku u baahaya cuntada caadiga aanan haysan oon haysan oo meel cidla ah geedo cidlaa hoos jooga baa ku badan oo jooga oon cidna ka warhayn oo aan cidna u tirsanayn oo hay-ado caalamiya cid ay dadkaasi u diiwaan gashan yihiin midna unan jirin iyo cid u naxday iyo cid mataqaanaa ka warhaysa muddo 2 sannadood 3 sanno ku dhowna roobka iyo qorraxdu ay isku daba marayaan oo ku darxumaysan baa jira aanan laga warhayn marka haddee dadka waxaan qiraynaaba meel kastaba ha ahaata barakacayaashu ha joogaane waxay ahayd xukuumad iyo hay-ado caalami ah ama kuwa madana wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada hay-adaha adeegu ay ugu horeeyaan inay iyagu marka hore ka warhayaan haddii quuta daruurigii nolosha bilaadanka laga maarmaanka u ahaaba dadkaasi aynan helin si ay wacyigelin iyo hadda nadaafad iyo mataqaana ka hortag cudurkan dilaaga ee adduunka ku faafaya cid uga gargaaraysa cid ka wacyigelinaya inayn jirin baan qiyaasayaa anigu okay aad baa u mahadsan tahay waan ku soo noqon doonaa qodobka isaga waxaan u gudbaynaa xubinka saddexaad oo ah guddoomiyihii ugu horreeyey ee taariikhda deegaanka oo is-casila isaga oo macnaha dhaliilsan maamulkii uu hoos tagayey oo una adkaysan waayay xadgudubkii meesha ka socday maamulkii oo cabdi ilay guddoomiyahan waxa weeye deeq oo hadda meesha oo macnaha dooda ka galaya mahad magac qaldan baa haystaa mahad waxaan ka joognaa baan u malaynayaa 2 sano iyo wax ilaa markii aad is-casishay ee meesha ka carartay maxaa isbedelay waxa weeye maamulkii hore ee dhaliilaysay ee aad meesha uga carartay ee iyaga dartooda aad isu casishay iyo maamulka cusub ee hadda qabsaday degmadii dhanaan macnaha maxay u kala duwan yihiin oo waxa weeye kuwii hore ma dhaamay kuwan ma dhaamay maxaa isbedel oo dhanaan ku yimid seed u aragtaa dhammaantiin marka koowaad waan salaamayaa inta khad ku jirta iyo inta ummadda Soomaaliyeed horta marka koowaad waxaan leeyahay cudurkan coronaviruska inuu ilaahay naga dulqaado ummadda Soomaaliyeedna ay ka badbaadiyaan uga ducaynaa ta kaleeto waxaan ka yar saxayaa anigu guddoomiyaha ma ahayn madaxafseedka ka hortagga masiibooyinkan ahaa xilliga aan xilka iska casilay waxay ahayd horraantii markii Mustafa Cagjar uu xilka qabtay baa marka xilliga Cabdi Ilay ma ahayn waxa de mas'uul ma ahayn qof shacban iska ahaa laakiin muddadii hadda uu Mustafa xilka hayay iyo haydintan xilka ka tagay haddaan ku socdo isbedelka meesha yimid isbedelka guud ee deegaanka yimid waxa la dhihi karaa uu kooban yahay
tusaalahaan marka la yidhaaho maaragtay xidhigii faraha badnaa iyo tacadiyadii faraha badnayd ee deegaanka ka jiray ma jiraan laakiin waxaa meeshii bedelay monopoly ama dowlad sidii tii hore u dhisan laakiin ka duwan sawir ahaan ka duwan baa meeshii timid haddii la yidhaho xagga horumar ballaadhan degmada dhanaan iyo maaragtay guud ahaan gobollada deegaanka kama hirgelin wax isbeddeloo la taaban karana muusan imanin musuq fara badan bay dadku tabanayaan markii xukuumadda la weydiiyana xukuumaddu waxay uga jawaabaysaa wax maasuq ma jiro cadaymaha la keeno haddana waxaan aragnaa iyadoo laleeyahay meel hebel la dhex dhigay iyo meel hebel la dhex dhigay wax xadhigga laga jarayna ma jiro marka taas waa taas ta kaleeta dhinaca horumarku deegaanka ma wada gaadhin meelaha qaarkood waa laga yaabaa inuu horumarku gaadho oo laamiye iyo wax laga sameeyey laakiin dadka inta badan degmooyinka jooga waxay weli tirsanayaan inaysan xukuumaddu weli horumarka wada gaadhsiinin degmooyinka qaarkood marka waa saas okay waad mahadsantahay aad baa u mahadsantahay mudane waxaan ku noqonayaa guddoomiyaha siraaj axmed cabsiye waxaan ognahay inaad aad uga soo shaqaysay arrimaha bulshada in badanna aad shacabka u halgantay adiga mustafe waxaad ka wada halgami jirteen xisbiga siraaj iyo barihiisii bulshada iyo aad laba activist ka ahaydeen mustafe I don't know inaad kala tagteen baan u malaynayaa laakiin waxaana laga yaabaa inaad la taliya u tahay oo waxa weeye macnaha maamulkiisa baa ka tirsan tahay waxba kama sheegi karo madaxweyne mustafe maadaama oo isku xisbi aad ahaydeen ama inaad haddaba wadatiin laga yaabo ma kala talisay waxa weeye qaabka deegaanka uu maamulayo iyo sidii laga filayay inuu macnaha aad moodo inuu ka weecday iyo arrimaha ma kala talisay بسم الله الرحمن الرحيم آدي آد بانكو سلام يا محمد هيبة وريا محمد هيبة وأنا تكون مع سنتي سؤال هذا عدان مركا لبعض ريموت كهلا ورثة الكوباد أنا حقيقي جود السراج بان هاي سراج نوحة هذا اللي يردي صوماليات اللي حدن يدور قف أقوى يعني مركي يجور شوي مهتين شركة دي يجور هنا لقوا قبتي ديسمبر أفريل لبعتك إديشن لعتك دي لقوا قبنا مقالة نيروبي لقوا صار لسي مصطفى ونقول شيء جود كفولين تأيوها qaybta xog ururinta iyo informationka ayuu joogay yuu ahaa gudoomiye oo ahaa run ahaantiina waxay ahayd sababta uu meesha ku yimid mustafa arrintaas siraaj bay ahayd oo maadaama isagoo cid wala xiriireysay dadka iyo macnaha gudaha iyo dibadda la xiriireysay wixii information ururinayay uu isagu ahaa haddaan u soo gudbo hadalkaagii ahaa weli malaha waxaad isku ahaydeen group goormaad kala xiriir furateen mise weli xiriir ahaan waad wada socotaan haddii aydaan wada socdaan aad kala xiriir furtaanna weli ma kala talisan dhibaatada deegaanka taala horta haddii mustafa uu tala iga dhageysanayo ama uu dadkii siraaj ahaa ee la socday aqoon-yahankii deegaanka iyo kuwa la jooga haddaba ee advisorska ugu qoran hadduu nin wax ka dhageysanayo yahay miiskan maynaan fadhineen maanta that's the reality horta taas taabaan kaala yahay waayo nin wax dhageysta ama wax dad ka qaata ma aha taasi waa taas haddaan u soo gudbo xagga su'aasha ari ahayd weli ma la talisay oo ma tiri sidaa iyo sidaa aniga 24 August baan Mustafa yaanu kala macasalaamaysanay waxaan u kala macasalaamaysanayna waxay ahayd totally anigu waxaan diidanaa in qof layna dul keeno qorshaha siraajna kuma jirin qorshe nidaamkan anagu ogolayna ma ahayn waxay ahayd haddii xataa cid anagu aanu siraaj ahaan keenayna inta la isu yimaado oo la wada fadhiisto la yiraahdo waryaa inoogu fiican rag badan oo Mustafa kaga fiicnaan lahaa madaxweynaha ayaa jira dad badan baa kaga fiicnaan lahaa oo siraaj gudihiisa ku jiray oo uu kamid yahay Axmed Xasan Xaaji oo kamid yahay Cabdi Qaadir oo kamid yahay way badan yihiin marka weli maanaan intaan wada fadhiisanay laakiin waxay noqotay in daaqadanba uun qof annaga kamid laga soo galiyo horta arrimahan anagu diidanaa koob taasa kamid ah oo shalay tole Cabdi waa loo keenay maxaan ka duwanaan doonaa wadadii baan ku dhacnay baan lahaanu aan ka soo guurnay ee aan ka dagaalamaynay ee aan ururkan u aas-aasnay cadaaladda iyo horumarinta bulshada baaban dib ugu dhacnay baan taagnaano tii baanan weli taaganahay maantii hore keliday baan ahaa laakiin maanta majority oo dadkii intii ugu badnayd ee deegaanku maanta doontayday saaran yihiin laakiin waxaan ahaa shaqsigii ugu horreysay ee dhaliilay ee yidhi systemkan anigu ma rabo mana ogolaan karo waxaana u diidanaa number 1 waxay ahayd dad badan baa waxay ugu laan warcabsiyo Jaanis Madison saaxiibka oo muddo dheer saaxiib ahaydeen oo aad iyo aad isu taqaanaan oo aad isku magaalo tihiin oo isku dad tihiin maadan Jaanisinin aniguna waxaan lahaa nin kolay lagu keenay salad lagu keenay Jaanis siin maayo waayo dadkayga
in la dhibaatayo gumaysigu uu uga faa'iidaysto mushkiladda iyo dhibaatada maana rabin horta halka taa tii siraaj halkaasaan kaagaga xidhayaa 24 August baa isugu kaaya dambeysay waa laga yaabaa inaanu marmar ama tacsiis u diro ama aanu isa salaano dee si ehel baanu nahay oo dad isku magaala baanu nahay haddii aan isaga geeri ku timaado ama walaalkii markii la tutoriyo kale ama aniga walaashay markay dhimatay oo kale ama dad badan oo kale saasa waa laga yaabaa inaan tacsiis ehelnimo isu dirno iyo qaraabanimo iyo qoysnimo laakiin siyaasad ahaan maalintaasaan kala dhaqaaqnay markaan u soo gudbo marka tan siyaasadda cakiran ee deegaanka anigu idin sheegi maayo maanta oo siyaasadda maalinta aan arkay maanta taagan tahay waxay u taagan tahay in afayeenkii la is casil oo maxay isu casilaysaa waxaad isu casilaysaa dagaalkii oromada ee xuduudaha qayb ka ahay hal qof oo wali lagu maxkamadeeyay hal qof oo wali inta maxkamad lagu soo saaray xukun lagu riday sorry ummadda Soomaaliyeed baad dhibaataysay dumarka yagii baad kufsatay carruurta yadii baad laysay odayaasha yadii baad laysay hantidii ummaddaad dhacday dhulka yagii baad dhibaato u geysatay hantidii ummadda iyo servicekii baad la dagaalantay maamul xumo iyo xidha iyo garaac baad dad ku samaysay abeeraatay ma jiro marka anigu waxyaabahan diidaya waxa kamid ah maalin walba in la yidhaaho hebel arrin kale ama August buu dad laayay dad ku laayay iyadoo 30,000 oo qof in ka badan oo ummadeennii Soomaaliyeed la laayay oo la xasuuqoon cidna ka daba tegay okay madaxa siraaj hal su'aal oo kala kugu celinaya su'aashaas oo ah jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenia madaxweyne mowqifka uu ka aaminsan yahay wuu sheegay wuxuu yiri totally nimankaasi way qaldan yihiin waana la dagaalameynaa haddaan soo koobo way hadalka ilaa intay magaca wataan adiga siraaj ahaan sidoo aragtaan ururkii gobonimo doonka ahaa ee waddanka dawladda la heshiiyay waxa weeye soo halgamay taariikhda iyo wixiga ku lahaa in nooca loola dhaqmo oo mas'uuliyiintoodiina iyagana marka mar walba fagaaro walba lagu eedeeyo oo qaabka loola dhaqmo say kula tahay bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa weeyaan anigu oo aan la fikir aan ku diidanahay baa jira waxa laga yaabaa Mustafa laba arrimood inaan ka simanahay baa dhici kara waa midda koobaad ee oo aan la magaca inay iska bedesho oo magacaasi magac ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka fargareynaya inuuna ahayn fikran aaminsanahay baa jirta laakiin xaqiiqda markaan idin sheego maanta oo aan la xilligii laga hortagayay ma joogto oo aan la waxay u baahan tahay in la soo dhaweeyo systemka lagu soo daro way mahadsan yihiin kol haday qorigii iska dhigeen oo nabad qaateen anigu waxyaabahan ku haysta waxa kamid ahaa maalintii ay dagaalka galayeen halooya meesha la yiraahdo halooya ay dagaalka ka galayeen halooya maxaa la garigo'an ay dagaalka ka galayeen war naga daaya dadkii lahaa dhalinyarada yaryar aadka u yaryar baan ku jiray waayo waxaan lahaa dadkeenu way soo qaxeen xamar bay ka soo qaxeen boosaasay ka soo qaxeen hargeysay ka soo qaxeen abaar baa haysata Ethiopia nidaam iyo system dhargi aba ka jira way naga tagay nidaamkii hadda dagaal ma gali karo wadaan ciidan ku sameeyay ku tababarana ma haysano ummad Soomaaliyeed inaga dambaysa ma jirto war dagaalka naga daaya labada arrimood baan ku khilaafsanaa anu oran waliga yaalahay arrintii mid kamida way ka tanaasuleen oo qorigii way iska dhigeen sidaas daraadeed in la yiraahdo haddana maanta waa la idin la dagaalamaya waxaan u arkaa inayna wax meesha la egahayn haddii uu Mustafa rabo inuu fangorta ka tuuro ay dagaal mar dambe galaana ummadda Soomaaliyeed dani uguma jirta arrinta sidaas daraadeed waxaan u arkaa anigu fikir ahaan ururkan oo aan la isu daayo yaan la dhex ordin yaan la dhex gelin ha tashadeen ha isku tashadeen ha ismaamuleen siyaasadda iyo nidaamka ka soo qayb qaatay waynu u baahannahay minimum 2 or 3 in xisbi laba saddex xisbi oo ummadda u tartamo ay ummaddu kala doorato choice hesho waa loo baahan yahay marka sidaas daraadeed oo aan la ina maalin walba la quceeyo oo ma garanaysaa aad maalin walba bogging their eyes waxa Ingiriiska leeyahay inaad indhaha faraha ka galgaliso si ay u xanaaqaan oo u provocate garayso waan maqlay waraysigiisii shalay toole markuu lahaa kan weeye kii kale weeye waxa taa dhinay gareynaya magacoodii wuxuu dhan gareys يعني ما ها سياسة بسل وحاد مودا بسلانشو سياسات إنه نهبا يراتي مدحوينها ديغان كمان تهو قابل يقبل any reason أو أنا لف ما أنت قدشة أما ويسكو دي إنه معناها أوغا حناتيا أما أو قيبية أما يغا يسوغو ديرو أنا ما أركو وحويا أنا قال لهي إنه لا ترتمو يسو دياريو حكمك ويسو كقيب قاتو أو كبضية سياسة لكن سهوفا أو international أي ودادا بسعوني إن لو قدبوي لكن ما أقولين
mana ogolaan doono mustafa uu isku daya maanta haddana oon la fiiro dib u bixiyo si uu uga helo power okay aad baad u mahadsan tahay xogayaha guud ee xisbiga Siraaj Ahmed Cabsiye waxaan u gudbaynaa adeer Xasan Ducaale Xasan Jabhad waxa tahay xogogaal deegaanka ka soo jeeda in badan ka soo shaqeeyay waxyaabo badan baad goobjoog u ahayd madaxweyne Mustafa markii uu ku guuleystay dhamaanteen waynu soo dhaweynay aad baan u jeclayn waxa way dadkii la dhacay baa waliba aniga adiga aan kamid ahayna aad u taageeray muddo kadib 2 sano ku dhawaada kadib maxaa isbedelay maxaa isbedel ma ku muuqdaa oo ka duwan kii Cabdi Ilay aad baad u mahadsan tahay wariye Maxamed Haybe halka aan ka saxo sax Mustafa anigu ma ana soo dhaweyn nin ras balas mililig laga soo magacaabay awraaja ah oo kiish lagu keenay baanu arkayay wada khaldana lagu keenay absolutely marra Mustafa ma aan taageerin Mustafa maranu xiriir ka lahayn xaggan markuu Wardheer News wax ku soo qori jiray oo journalka aan kamid ahaa qolada guddigiisa baan xiriir dhowr jeer wada sameynay laakiin anigu Mustafa iyo nidaamku ku yimiday yes in Cabdi la bedelo way ahayd Cabdina sida lagu bedelayna si khalada bay ahayd square one Cabdi inuu nin dhibaato aan la soo koobi karin dadka yaga iyo dadka Soomaaliyeed u geystay oo isaga oo gacantii gumaysiga Itoobiya xukuumadii TPLF hogaaminaysay ihadhigto ay gacantii ay ummadeeda ku baabisay oo ahaa in la bedelo way ahayd laakiin yaa bedelay seese lagu bedelay gobolka waa la qabsaday inqilaab baa la military baa qabsaday odayadii deegaanka iyo wixii awalba Cabdi la shaqayn jiray xisbi ku sheega iyo baarlamaanka ahaaba baabuur lagu guray Addis Ababa la geeyay ninkan oo kiish lagu wado ayaa loo dhiibay ninkana idin xukumi maxaa lagu doortay Mustafa markaa dad badan baa sida Cabsiye hadda uu sheegayo dad badan oo dhalinyaro ah aqoon-yahano ah siyaasiyiin oo Soomaaliyeed baa Addis Ababa joogo isugu tagay Mustafa particular sababta lagu doortay baa markaa jirta sababtii lagu doortay ayaa anigu diidanaa haddii Cabdi uu Tigreegu inoo dooray haddii kuwii ka horreeyay mar walba la inoo doorayay muxuu ka gadisan yahay saddex arrimood baan ku tilmaamayaa number 1 Mustafa waa la inoo keenay Cabdina waa la inoo keenay kii horena waa la inoo keenay baarlamaanka hadda Mustafa u shaqeeya ama xisbiga u shaqeeya ama golihiisa wasiirada intuba waa intii hore waa recycling waa intii Cabdi la shaqayn jirtay muxuu Mustafa ku wasiirada ku magacaabaa ama qofka jaga ugu dhiiba waa Cabdi baa ku xiray ama Cabdi baad ka soo horjeesatay ama Cabdi baad ka baxsatay waa intaas dadka hadda Soomaaliyeed ay maqlayna arinta marag bay ka yihiin Mustafa wax uu ka gadisan yahay Cabdi oo uu ku faanaa waxa weeye uu sheegaa cid ma xiro Mustafa wuu xiri lahaa waxa uu diidan sharcigan hadda ku meel gaarka ayaa waa la laari doonaabe oo dad xiri mayna dadkii xidhnaanaha la sii daayay baa dadka hor taagane intuu xiru waliba Cabdi uga daraan lahaa baan ugu qabaan marka Mustafa marra ma taageerin mana taageeri doono waayo waa astaan gumaysiga Itoobiya oo dadkayga dul dhigay dadkayagu weligood ma tashan dadkayaga waxba lama weydiin dadkayagu tala ay leeyihiin cid meel kuma ay keensan marka laga reebo labadii mare u horeysay ururka ONLF u xukunka hayay bay laba madaxweyne doorteen Allah naxariistay Cabdullaahi Maxamed Saadi iyo Xasan Jira Qalinle labadan nin baa Soomaali dooratay ama ha fiicnaadaan
si kastaba ha ahaadaan dad Soomaali la doortay bay ahayd Mustafa haddaan anagu dooran lahayn xataa baarlamanka maqaar saarka ah iyo xisbi ku sheega halka joogay ee jigjiga joogay hadday dooran lahaayeen oo kuwii Cabdi Lugtiye gacantaba u taagi jiray hadday xataa iyagu dooran lahaayeen oo ajenda soo iyagoo jigjiga jooga dooran lahaayeen waxay ahaan lahayd ma jirto Soomaali cid ay dooratay iyo cid ay dooran karto dadka waa la haystaa dadkayaga waa la haystaa Addis Ababa awraaje ama nin horjooga looga soo magacaaba Mustafana annaga yuunan kolba cimaamad iyo koofiyad noo soo gashanay waa wiil yar oo cadawga gumaysiga Itoobiya uu dadkayaga hor dhigay marin habaabinayaan by the way Mustafa wuxuu halis ku yahay Cabdi waa ka aqoon badan yahay waana nin narrative-ka u wato ama ajendihiisa dadka ka dhaadhicin kara waa halis laakiin halis wuxuu u jeedinayaa dadka maalin dhow waxaan ka arkay isagoo leh xisbiga BB ee anu aan ka madaxa Itoobiya oo dhan buu matalaa su'aashu waxa weeye dadkaygu Itoobiyaan ma dadkayagu yaa Itoobiyaan weeyaan dadkaygu ku yir Mustafa waan ka hadli doonaa arrinta afar baa iga taagan intaas oo soo qoobaya aad baa u mahadsan tahay macnaha sida wanaagsan ee noogu sharaxday su'aal ayaan ku weydiin rabaa waan kugu celin rabaa su'aashaas waxa weeye deegaanka kama jiri jirin macnaha xurriyatul qawl inuu dadku iska hadlo waxa weeye baraha bulshada laga hadlo live la soo galay iyadoo jigjiga la joogo oo wixii la doono la sheego arrintaas inkastoo dadka qaar haddana la xidhxidho macnaha ay ku dhacday dadka intooda badan haddana cid lagu xidhay cid lagu dabagalay iyo ma jiraan sidoo kaleeto jeelkii weynaa jeel ogaadeen waa la xidhay tacaddigii ugu weyn uu ka dhacay xidhigii inuu aad u yaraaday ayaa la sheegayaa xurriyatul qawlkii macnaha wanaagsan yahay waa labo labadaa qodob oo macnaha wanaag labaduba idinma muuqdaan miya macnaha seed u aragtaa labadaas qodob oo madaxweyne Mustafa uu hadda su'aasha aan ku boodo horta Mustafa wuxuu gobolka deegaanka ku soo kordhiyay ma jiro oo ahayn inuu dadkayaga dib ugu raro era waqtigii mililig iyo waqtigii Hayle Silaase inta horta fikradaas uu nagu soo kordhiyay waxaan hadda aad ka hadlaysay ama xorriyad qowlka ama xidida jeelka jeel Addis Ababa ku yaala magaca afxmaariga ma aqaaniye waxa laga sii daayay dad 40 ka badan xorriyad qowlkan Itoobiya ninkan laba aktar baa Itoobiya soo baxay oo jirayaal aad u fiicana mid waa Abiy ka kana waa koobigiisa waa Mustafa labaduba way yaqaanaan sida wax loo jiro jeelkan Addis Ababa kanba uu buuxsami doonaa waqti baa la gadayaa waqti uma inooga harsane waxaan kuu sheegayaa waqti yar oo gaaban bay jeelashan xiran yihiin dadka hadda waaba la qaadaa oo hadda bardhaweed wiil nadir u ahay iyo wiilal kaleba waxa laga qaadaa ajaba loo gudbiyo jeelal kaleba loo gudbiyo intii caruurtu wiilashu ay noogu xidhnaayeen jeel ogaadeen hooyooyinku inay nool yihiin kale ka warhayeen baaba tan ahayd hadda dadka jeelal kale waa la gudbiyaa waa la dhoofiyaa oo taasi xaqiiq weeye waxaan kuu sheegayaa arrintan xorriyad qawl dadku ninkani waxa weeye Itoobiya waxa hadda yar briefing waad aragtay ninkii Jawhar loo oran jiray xataa hadda inuu aamusay waa la iskaga dabayno maalin sharci baaba la soo saarayba sharcigaasi dhawaan buu si fulla u hirgeli doonaa mana dhici doonto in meelaha laga hadlo haddadanba way xadidan tahay agajugleyn baa jirta Mustafa hadda markastuu hadda walaalkay madaxweyne Mustafa Maxamed Cagshar kusimaa madaxweynuhu wuxuu yidhaa waxba dad hadalaayaa la yidhi iyo propaganda la fidinayaa iyo kicin iyo abaabul yes waanu kicinaynaa dadkayagu waa inaynan aqbalin in gumaysigii Itoobiya dib loogu celiyo waan haddaan dembi lagu galayana dad badan baa dembi ku galoon anagu ugu horeyno waanu diidanahay markaanu nin baa yidhi haddaan dabnina ma afkaana ku waanu leenahay gumaysigii Itoobiya ee dadkayaga iyo dalkayagaba ragaadiyey inaad Mustafawna dul keento inaad Mustafaw axmaaro uga ololeyso inay jijiya ka soo baxdo iyada oo nin Soomaali oo dirawal ah una baxradaar xataa dhex tegi karin un dhex mari karin ardada jaamacadaha ku jirta gobolada kale ee
deegaanada kale ee Soomaalida inay gacan ku gabada yihiin wiilal ahaba jaamacad uu ka helay jaamacadan agteena Haramayo ka helay engineering wuu tagi waayay why kii counterpartkiisa ahaa ee deegaankaas ka soo jeeday jaamacadda Jigjigu jooga wiilka hadda bila jaamacad weey ma uunan tagin war dadka yaga Mustafa wakiil kama tihid deegaanka Soomaalida wakiil Mustafa haddaan hadda weydiiyo war dhulkaad xukuntaa halkuu ku joogaa ma yaqaano cala orama inuu ka taagan yahay harbiciida togo jaala duleedkeeda Mustafa ma yaqaano mana oga kala maare inay Jigjiga u jirto 3 kiiloomitir oo calan qoomiyad kale ka taagan yahay Mustafa ma yaqaano mana oga Mustafa wakiil uu cid kale u yahay waan u tagi doonaa niman saaxiibanahay oo Itoobiyaanka ah ayaa aad u jecel oo aad u amaano oo waliba ka soo jeeda dhinaca Axmaarada markaas waxaan xasuustay mahmaadii ahayd Jamaal Cabdinaasir Jamaal Cabdinaasir baa wuxuu yiri haddaad aragtaan cadowgiina oo ay amaanaya haddaad aragtaan buu yiri cadowgiina oo ay amaanaya la socda cadowgiina u gacan galay haddaad aragtaan cadowgiina oo wax iga sheegaya oo ay caayaya haddaad aragtaanna waxaad ogsoonataan waxa la igu dilaya dantiina ayaan ka shaqeynayaa Mustafa waxa iga jecel nin girma la yiraahdo Itoobiyaan oo saaxiibkay oo raqaano Axmaar oo xaq jir ah oo raqaano ayaa iga jecel Mustafa anigoo marna adeero ah marna aan isku deegaan ka soo jeedno oo runtii aad iyo aad aan family-googa deegaankooga u aqaano Mustafa wuxuu ka soo jeedaa deegaanka Bulaale markii 1979 saddex boqol oo nin oo jabhadii xoreynta Soomaali galbeeda ayaa ceelka Bulaale ku dhimatay Axmaar kulaysa dagaal halka ka dhacay 300 oo dhaawacana waa ka qaadno Jannat hospital oo Hargeysa ku yaala ayaanu geeyay dadka la geeyay waxay u badnaayeen dadka deegaanka jarar ba u badnaayeen dadka halka ku dhintay kala jaraad bay ahaayeen dadka ugu geesisan dadka deegaanka iyaga weey waan jeclahay ma nacbi qabiil ahaan uga soo horjeedo hase yeeshee Mustafa ma aha wiilkeenne waa wiil wuxuu ka mid yahay Ibrahim Dheera maandho sheegay wiilal dhalinyaro oo brainwash ku dhacay oo Allah caafiyo kuwa adeeron ahayna way ku jiraan aaminsanba inaan dadkayaga wax kala ku sheega challenge-kayguna waxa weeye dadkayagu Itoobiyaan ma aha dadkayaga waa la gumaystay waxaan aamin cid kasta oo tiraa dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya qabsatay ee waqtigii la qabsaday la ogyahay ee taariikhda ku cad waa Itoobiyaan waa dambiile agtayda waana mujrim waa been buna sheegaya ilaa dadkaygu ku cadeeyaan ballot ma taqaanaa doorasho xorriyad qowl iyagoo si xor ah inay u cadeeyaan oo afti laga qaado oo yiraahdaan Itoobiyaan baan nahay xataa in Itoobiyaan la nagu sheego ayaa dambi baan lagu qabaa okay aye waa ka baxay mahad kor inankii nadaadiinay uu ka baxaan magnaado kor uu ka baxaan maray wiilkii kuma jiro ha go ahead had soo galay ma maqashay ma maqlaysaan waa naasanta si fiican xasan si fiican lagu hadda ma maqlaysaan waxaan idinka raali gelinayaa macnaha dad baa soo wacaya dadka waxay uga jeedaan garan maayo oo mar walba isku aad baa idinka raali gelinayaa ma maqlaysaa cabsiyow si fiican baa lagu maqlaa haye ku soo cadhay su'aalaha asii wato anu hadalkayga intii dambe lama maqlayn baan u malaynayaa waxaan ku challenge garaynayaa baan idhi waxaan ku challenge garaynayaa si fiican baa lagu maqlay challenge garaynayaa cid kasta oo dadkayga ku sheegta inay Itoobiyaan yihiin inay been sheegayaan dadkayagu Itoobiyaan ma aha dadkayaga waa la qabsaday cadow Abasiiniyo oo Axmaar hogaaminaysa qabsatay Hayle Silaasa qabsaday Mingisti baa xasuuqay waxa ihaadig baa xasuuqday baarlamaanka hadda maanta Abiy ku jiro ee Abiy uu ka madax yahay ee BB-da u shaati rogtay Soomaalidu waxay tiraahdaa waraabuhu
dhogortiisa waa dooriya laakiin damcigiisa ma dooriyo baarlamaanka BB-da ee hadda BB-da u guuray ee kuwii uuna iyo kuwan gobolka jooga hadda abiyu ninkii maamulkii dadkayga xasuuqay buu ka mid ahaa hadda maanta in annaga la nooga dhigo nin mataqaanaa samada laga soo diro oo Itoobiya dimuqraadiyad u wada waa been waxba kama jiraan dadku weyn Itoobiyaan ma ahine waxaan Itoobiyaan u aqoonsanaynaa maalintay dadka yagu si xor ah afti ugu muujaan inay Itoobiyaan yihiin waan ka baxay aad baa u mahadsan tahay su'aal ayaan weydiinayaa su'aasha kale mudane mahad su'aashan ku weydiinaya waxay tahay maamulka Cagjar ها سيف عمال أقول مغلا maamulka Cagjar baa ka hadana ku socdo si fiican baa maqashan baan malay dib waxyar su'aal baan ku weydiinaa أسدو كم مغلا عليها أسدو كم مغلا بركة بل واحد جعلان لها ما هذا كوس عاده horta haddaan ku socdo anigu nidaamka meesha ka jira dee waad garanaysaa qof walba uu garanayaa waa nidaam aad moodo inuu maaragtay uu jihadii loo socday mustaqbalkii isbeddelkii dalka ka hana qaaday oo maaragtay ra'iisul wasaare abiy ku yimid aan la jaan qaadin mustafa markii ugu horreysay uu meesha yimid wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay fursad noocan hela muddadii ugu 3 ama 12 madaxweyne isaga ama 11 ha noqdaan isaga ka horreysay fursadda uu mustafa helay mid helay ma jiraan waan qabaa marka wuxuu helay waqti dheer 27 sano cadaadis military lagu jiray isbeddelo kala duwan oo ilaa maaragtay mililiga lagu soo jiray waqti noocaas oo Itoobiya ay maaragtay cadaadis fara badan ku jirtay ayuu maaragtay yu mustafa yimid markii cadaadiskii noocaas laga baxay ee abiy uu ballan qaaday inuu dimuqraadiyadda tawrka inta laga guuro dimuqraadiyad rasmi ah dhalinayo yu mustafa meeshii yimid marka mustafa aan waxaan qabaa kamuusan faa'iideysan kow waxyaabaha dhalilay mustafa aan ku dhalay waxa kamid ah markii maamulada iyo degmooyinka iyo gobolada iyo wasiirada la dhisay nidaam qabiil baa lagu dhisay waata ilaa hadda maanta aan fadhinay ilaa caawadana fadhino ka shaqayn kari lahayn waayo marka uu wasiir hebel ka qaado ama madaxtooye ka qaado ama maaliyad ka qaado ama uu dakhli ka qaado waxaa la rabaa inuu wasiirkii reerka hebel uu ku bedelo hadduu gudoomiye gobol ka qaado inuu gudoomiye gobol reerkooda ku bedelo halkii uu nidaamkii xisbigaha meeshii jiray iyo dadkii meesha ka shaqaynayay inuu xusho oo maaragtay uu maaragtay xisbinimadkii meesha ka jiray lagu shaqeeyo isagu uu ka guuray mustafa wuxuu keensaday dad Nairobi laga keenay dad maaragtay Soomaaliya ka yimid dad hay'ad ka shaqaynayay dad yidhi cabdi maxamed cumar nidaamkiisa baan ka baxsanay oo maaragtay dibadaha wada carray even aan la garaynin bayna musuqmaasuq iyo waxyaabo dhibaato kale uga baxsadeen meesha aan la garaynin yu meeshii keensaday shaqooyinkii noocaas ahaa dhan way wada istaageen halkii dadka noocaas la soo xushay waayo dawladdu waxay u baahan tahay dad la sii haysto kaadarkii meesha jooga ee dawladda ahaa lama xulina waxaa la yidhi dhammaantiin ama heegaatiin ama cabdi baad la shaqayseen ama maxay baatiin baa la yidhi marka mustafa waxyaabaha ugu badan ee ku dhalilaya dhinaca maaragtay xulidda maamulka oo qabiil lagu soo dhisay baa kow ka ta kaleeteen ku dhalay waxa weeye habeenkaas isagoo colijoog mar kasta oo maaragtay la yidhaaho ama aan bil ama 2 bilood laga joogo waxay isku dhacaan hogaaminta isaga la shaqaynaysa tusaale ahaan isagii axmed shaac isku dhacay isagii aadan faarax baa isku dhacay isagii cabdiraxmaan ciid baa isku dhacay hadda ugu dambeysay isagii cabdi caadil inuu ogeyn halka isla gaadheen isku dhaceen caawa oon haddana joognan afhayeenkii dawladda ugu sarreeyey ee maaragtay hay'adii sharciga ugu sarreeyey yaa iscazil marka dhibaatadu halkay ka socotaa dadka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan dhibaatada halkay ka socotaa anu waxaan leeyahay dhibaatada waxay ka socotaa walaalkeen mustafa laba arrimood yaan ku diidanay midka koowaad waxa weeye hogaamin qof hogaamin u carbisan ma aha xalay su'aasha cabdi xaafid weydiiyo kale tusaale uu ka xanaaqay oo waxa la yidhi 100 koofiyood baa xiranta activist suuqa noocaas laga shaqeynaya laakiin walaalkeen arrinkii loogu talagalay hogaamintii iyo kaadirkii u tababaraa inuu hogaamiyo 10 milyan ma leh taas waa taas ta kaleeto xagga maaragtay talada dadka isaga la shaqeynaya ama dadka isaga u dhudhu talada inuusan ka qaadanin baan filaya oo keligii uu talada qaadanayo qof keligii talashanaya oo aan maaragtay la taliyaashiisii iyo maaragtay dadkan u dhudhow aan talada ka qaadanayn marka xaaladda hadda aan ku jirno mid lagu socon kara maaha ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka ku nool iyo maaragtay Itoobiyaanka kale ee meesha jooga dad maaragtay waxaan hadda aan ku jiro loo adkaysan karo maaha marka mustafa in isaga meesha uu maaragtay wax bedelo oo automatically systemkan uu ku jiro wax ku wada uu bedelo ama in isagu meesha uu ka dhaqaaqo qof kale oo samata bixiyo ummadda oo Itoobiya iyo maaragtay isbeddelka la jaan qaadi kara la keeno labada mid un bay noqon okay aad baa u mahadsantahay Mr Ibrahim xogta fiican ee nasiisay mahad weyn Mr Mahad
xogta fiican ee nasiisay حاجة كله هدان كدرس هلا الربا كدر سنية هلا الربا كدر سنية أرنك كدر يحوي دينا حرية القول حرية القول إن بدل وعليا مصطفى وكان اللي حرية القول كيسوي مصطفى موسى كينين يسجى كوي من حرية القول واي يسبدل كيدالك كنا عاي أي قير يمارت يدد كيدول مديد كم كهاين يا أحمد عبسيين هدين اللي جوا يسوي لفت الجسم مصطفى وغيب كا يا يسبدل ككياني إمارت عبودنتي إمارت تي بيل في الجو جوليستو يجا كيان دت كاسا كيان مركا يسوي يسبدل ككيان يسوي يسبدل كموسى كين إلى حرية القول كا أنا ما هذا اللي حتوان عشان حنا وحانو حنا dhalinyaro aanan waa ka mid ahayn iyo dad kale oo maartay activistiyaal oo sunnimid waxaanu ka hadlaynay musuqmaasuqa shaqa abuurka dhalinyarada 35 kun oo dhalinyaro la yiri waa la shaqaaleysiin taasaanu dhib madaxweyne inaan nala xisaabtato haddaan dhalinyarada dawladeenkana inaad na soo fadhiisato oo na qanacsan rabna isla automatically shirki markan ka soo baxay waa la xidhay maxamed colaad hadda ugu dambeeyay waa la xidhay waan weyn xalayna uu dafiray gafdiid khaliif bil buuxnaa iyo ka badan inshaar waxaa laga soo qabtay Addis Ababa laga soo qabtay dad noocaas siraaji gurigiisa hay walba lagu dhacaa marka xorriyatul qowlku waxa weeye waa cid la raba loo fasaxa cid la rabo ee maartay wixii ay rabto ku hadli karta yaa loo fasaxa laakiin shir maartay dawladda laga soo horjeeda lama qaban karo banaan baxyo nabadeed hadii la codsado hay'adaha amniga laga codsado lama qaban karo marka xorriyatul qowlka lagu sheegayo afka baarkiisa iyo wax Facebook lagu soo qoro laakiin damaanad qaadkii dhanaa ee maartay beesha caalamka xorriyatul qowlka lagu beyski u ahaa ماشي كما جرو مستر mahad aad baa u mahadsan tahay xogta fiican aad nasiisay maadaama aad meesha ka soo shaqaysay aad baad ugu mahadsan tahay su'aal baan weydiinayaa madaxa xogayaha guud ee xisbiga Siraaj Mr Cabsiye Cabsiye su'aashan ku weydiinaya waxay tahay waa su'aal ku saabsan xuquuqda aadamaha deegaanka waxa ka dhacay taxaddi aad u fara weyn tacaddigaasi wuxuu ahaa mid ku dhacay shacabka mid qof kasta ku dhacay oo deegaanka dadka intooda badan 70% ku dhacay oo deegaankeena gudihiisa iyo mid dadkeena oo waxa weeye Soomaali ah oo deegaanka Oromiya dhexdiisa macnaha tacaddi ku dhacay gaar ahaan balbaleyti oo aniga hadda diiwaangelinta aan hayo dadka ay lagu gumaaday meeshaas 600 oo qof ka badan 2 sano gudahood waxaad ka tirsan tahay xisbiga Xiraaj xubin qoraa tahay xog badan baad haysaa madaxweyne Mustafa Cagjar wuxuu yiraahdaa mar walba August 4 yuu soo magac dhabaa oo 4 qof oo xabashi oo ku dhimatay dadkii shacabkii maalinka ku dhintay jigjiga 4 qof ee xabashida ay ku dhimatay Soomaalidii ku dhimatay waxa la ii sheegay inay 100 ku dhawaayeen oo maalinka ayada ah August 4 Soomaali badan baa ku dhimatay aan dhalinyaraan garanaya ku dhimatay oo ciidanka militariga Itoobiya ay ku dileen taa xitaa kama hadlo macnaha intii yareed xabashida loo geystay bas ayuu ka hadlaa adika xisbi ahaan ama ka aqoon-yahan ahaan arrimaha xuquuqda aadamaha ee deegaanka ka dhacay maxaa dadaala oo samayseen ka xisbi ahaan maxaa idin qorshaysan arrintaas ayna wax yar ka hadashaan rabaa bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantahay Asad horta waxa weeyaan waxaan rabaa inaan sawir idinka siiyo isbeddelkii la rabay deegaanka inuu ka dhaco iyo isbeddelka ka dhacay baan rabaa horta sawir inaan idinka siiyo ummadda Soomaaliyeedna waxaan rabaa inay si cad u fahanto deegaanka Soomaalidu waxa uu ahaa marka la eego deegaanada Itoobiya deegaanada ugu tacaddiga badan ee dadka kan waa al-Ittixaad kan waa ONLF kan waa WSLF lagu dili jiray oo lagu gowrgowrici jiray dadka gabdhaha lagu kufsanayo dadka lagu dilayo carruurta lagu qaadanayo wax tanba lagu sameeyay oo wax kasta oo bini'aadanka lagu sameeyo dadka shacabka deegaanka yaga annagu ka Siraaj ahaana waxaanu rabnay marka isbeddelka nooca ah lagagama bixi karo inaan maanta intaan kan irin haddana ku kala keenno lagagama bixi karo laakiin waxa loo baahnaa in lagaga baxo in la keeno leadershipka team ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay oo aqoon-yahan iyo waxgarad ah oo laba faa'iido la yimaada siyaasadda deegaanka salka u aasa oo siyaasad hufan oo ummadda Soomaalida anfacaysa la yimaada erayadan isticmaali jiray Siraaj markaan shirarka ku jirno waxa kamid ahaa waxaynu u baahannahay leaders shacabka kabahooda noqda waa meel ku qoran oo in badan markaan shirarka ka hadlayno aan ka hadli jiray waxa weeye marka madda labaadna waxa looga baahnaa leadership dawladda Itoobiya xuquuqdii inagaga maqnayd
raadisa hadday ku qanci weynada ummadda baalad u soo dhigto oo tidhahda Ethiopia ma ka mid noqonaysaan mise waad ka tegaysaan ilaa heerka leadership u hogaamin kara oo Ethiopia sanka guraa loo baahnaa horta صح oo yidhaahda tacaddi baa nagu dhacay oo ku quuqiya Ethiopia maantana ma inaad dadka iyaga laysaan baad rabtaan yidhaahda laakiin nasiib darro markii maamulkii uu meesha soo galay horta waxa la keenay nin silad lagu wadaa la keenay oo aan iska daa cid kale xataa ururkii Siraaj uu ka tirsanaa aan lagala tashan anigu xogayaa waa taasi waxay noqotay marka anaga markiiba personally aniga way ii cadaatay inaan ummadda Soomaaliyeed danteedii loo socono Mustafana aan ummadda Soomaaliyeed danteedii loo keenin meesha talaabada la qaadi lahaa ee isbedelka ahayd maxay ahayd meeshan tacaddi xuquuqeed oo ba'an baa ka dhacay corruption iyo musuq baa ka dhacay dhulal baa la kala boobay deegaanaa la isku durkay cadaawad iyo mushkilad iyo umuladoox baa meesha ka dhacay sidaas daraadeed waxaa loo baahnaa si isbedel dhab ah oo sal ballaadhani u dhaco in la yidhaahdo inta bugaagta iyo diinta lagu noqdo war isbedel noocan oo kale markuu dhaco waddan noocee ah baa loo maraa islaam baynu nahay waddada keliya ee la og yahay in lagaga dhammaan karaa waxay ahayd in 4 arrimood la helo ta koowaad waxay ahayd in dhibkii dhacay loo qaybiyo 3 qaybood oo la yidhaahdo wax la iska cafiyi karo wax ummad ahaan oo dhan loo wada cafiyi karo wax qofka inta la hor keeno sharciga lagu xukumi karo iyo waxay ahayd wax dawladda federaalka iyo ciidamadii qaranka iyo dadkii dawladdii sare ahayd lagu maxkamadeeyo dacwad miiska loo saaro international Hague meel walba laga dacweeyo saddexda horta in loo qaybiyo ahayd tacaddigii ummadda ka dhacay ina caynta sadda loo caadiyahay waa ta koobaad ta labaad waxay ahayd qofkii nidaamka ka qayb qaatay ee tacaddi geystay ma aha nin walba oo ka qayb qaatay waayo dhalinyaradeen oo dhan nolol kaleba ma jirin dawladda lagu nool yahay dawladdii markaa jirto un bay ahayd hadduu ka soo shaqeeyay hadduuna ka soo shaqeyn la qiimeeyo la baadho dabadeedna haddii uu nadiif yahay ummadda Soomaaliyeed la hor keeno haddii uuna nadiif ahayna ummadda Soomaaliyeed dib uga joogsan la yiraahdo saaxiib kuma baahna ummadda Soomaaliyeed nidaamkii qarabnaa la socdo waa arrinta labaad arrinta saddexaad waxay ahayd ee muhiimka ahayd in la dhiso nidaam qiimeyn ku dhisan oo xafiis inta loo qiimeeyo dadka shakhsi loo qiimeeyo waxa la wixii ku tacadiyay dadka oo dhan meesha laga saaro isla markaana ciidamadii dadka ku tacadiyay dadka leynayay iyaga laftooda publicly loo qiimeeyo oo qofkii qof dilo qof laayo qof dhibaateeyay la yiraahdo saaxiib la ruqseeyo oo la yiraahdo saaxiib ruqsa qaado oo iska tag meesha waayo waa dhiigi cabaad noqotay birina dadka waad leynaysaa horta arrinta isbedelku in lagu sameeyo ay ahayd saddexdaa waji in loo maray ahayd laakiin maxaa loo maray Mustafa sidoo adeero sheegay waxa uu ahaa adeer xasan sidoo sheegay waxa uu soo bandhigay inuu yiraahdo aniga waa man lagu xidhay hadda waa tuugi ummadda kabaheeda kabahay nabiga cunay adiga waa man lagu xidhaa xafiiska soo gal waa badni fiican baaba tahay la isma weydiin war cabdi baa qaar iska xidhay waraabanimadooda markuu ka yaabay cabdi oo tuug ahaa oo qaatil ahaa baa qaar qaatilnimadoodii iimaan la'aantooda intuu ka yaabay iska xidhay ummadda ka xidhay صح sidaas daraadeed dadkii meesha la keenay oo dhan haddaan imika nin kuugu taabto khalkhal anuu dadka taariikhdooda oo dhan baa nin walba hayaa programna waxaan ka diyaariyaa hadda la yidhaahdo baro siyaasigaaga marka dadka nin baan u naqaanaa qaar baa ku jira meeshan waxyaabaha ay ummadda u geysteen haddii lagaaga sheekeeyo aadan habeenna seexanayn sidaas daraadeed marka meesha ku jirta aan gabagabeeyo walaal adoo raalle ah maxamed hayde waxaan ka hadlaynaa wax weyn xuquuqda bini'aadamku waxay ka bilaabataa qofkii xuquuqda ku xadgudboorto marka hore in cadaalad la mariyo ka dambe uu ka cabsanayaa laakiin dhibaatada meesha jirtaa waxa weeye inaga gudaheennii aan ka hadlin inagu dadkii laynaga xasuuqay laynagu dhibaateeyey aan ka hadlin inaan maanta ku mashquulo 4 baa halkan lagu dilay 4 baa halkan lagu mashquulay toori baa lagu dhuftay war kama sharaf badnayn dadkii ummadda Soomaaliyeed la xasuuqay dadkanu 32 kun oo qof baa la dilay last 5 years ee u dambeysay 24 qof ama 20 qof oo jigjiga lagu dilay dadka la dilay waa sharci darro sax ma ahayn waxaan taageersanaa inay khalad ahayd inay dulmi ahayd in qof bini'aadan oo waddankeena ku nool la dilo oo si sharci darro loo dilo qof kasto iblaga waayo aayad quraana waxay ahayd qofka dila qof bini'aadan ma ahayn qof islaam qof bini'aadan qofka dila ee xaq darro ku dila wuxuu la mid yahay isagoo dadka adduunka
fayskiisa joogo oo dhan laayay marka waxaan walaalkaala hadlayaa waxa loo baahnaa in baadhitaan xataa lala xisaabtamo dawladda federaalka markaan kula xisaabta waxa ku jira lama iyo groupkooda way joogaan abiga groupkiisa way joogaan dadkay wax ka leeyihiin laftooda in la baadho cabsiya su'aal baan ku weydiinaa waxaad ka jawaabtay sidii fiicnaan lahayd iyo maamulkaasi sida uu sameeyay baad ka jawaabtay su'aal kale oo waxa ku raacsanayd idinka ka siraaj ahaan ka urur ahaan ka aqoon-yahan ahaan maxaad qabateen maxaad soo bandhig tacaddi badan oo dhacay baan idiin sheegay oo meelo kala duwan ka dhacay waxa weeye maxaa tusoo taabsiya oo waxa weeye aad qabateen oo waxa weeye dagaalku waxa weeye mar qalin weeye mar af weeye mar adin weeye kii adinka uu isku soo dhamaaday dagaalka ugu fiican ee hadda la qaadaa waxna lagu dhisaa waxna lagu burburiyaa waxa weeye waa qalin iyo af qalin iyo afna waad haysaan baartina waa tihiin qof aqoon-yahan oo activist ahna waa tahay maxaad arrintaa ka qorteen oo aad ka qabateen waxaan kuu sheegay tacaddi dhacay dad aad u fara badan oo waxa weeye maamulka Oromiya xasuuqay dad deegaankeena lagu xasuuqay oo laga hadlin cid loo soo xidhayna ayna jirin oo August 4 lagu meeray oo August 4 dadkii xitaa inaga dhintay xitaa aan lagu darin arrintaa maxaad ka horta eeg anigu personal ahaan waxaan aaminsanahay dadkeena tacaddigii gaaray from beginning to end lagama ba hadli karo maamulka hadda fadhiidka ah ee meesha jooga intuu joogo lagama ba hadli karaba waxna lagama qori karaba maba ka hadli kartid marka waxa dhibaatada meesha taalla waxa weeyaan mahmaa Soomaaliyeed baa waxay jiraan Maxamed Haybow falaadha isha kaaga taalla iyo tabaryaha kaaga taalla salkaad ka fadhiisan lahayd salka teel la iska fujiya marka horta inaynu ka fikirno dadkeena yaa laayay iyo xagee u baxeen iyo dadkeena in laga qaado afti oo ama Ethiopia iyaga macnaha go'aankooda ku raacaan baa mise waa inay diidaan intaan la gaarin bal horta falaar baa salka aynu ku fadhiisan lahayd nagaga taalle maamulkan fadhiidka ah baa wax walba hortaagan inuu meesha dhaafo yaan anigu ka shaqeynaya last 1.5 year okay aad baa u mahadsantahay su'aal baan waxaa weydiinayaa rugcadaaga siyaasiga Xasan Jabhad UWSLF oo ka soo shaqeeyay deegaan ka soo shaqeeyay Soomaaliya ka soo shaqeeyay wadamo kala duwan ka soo shaqeeyay Xasan Jabhad ma la oran karaa madaxweyne Mustafa wuxuu helay fursad aad qaali u ah markuu si gaaban u naayar kursiga ugu boodayso oo dib u soo marin dagaal u soo marin dadaal dheer u soo marin dadkii waqtiga kala guura Etoobiyadu isbedeshay dastuurku isbedelay nidaamkii oo dhan uu isbedelay meel fiican oo aayar uu kaga soo yidhi oo uu ka faa'iideysan waayo ma la soo oran karaa arrinta maxaad ka leedahay bismillah maadaama adeera meesha ku system ku jira ما يمغشان حسن جبهد ما يمغشان سيستمك ما هتسي سفيعا ما هاد واد مغشان سو ادو ku dhaqaaq maadaama oonan okay haye ma hado aadi qabso marka su'aasha anigu su'aashan aan ka jawaabo aniga ka mahadahan waxaan qabaa Mustafa kama faa'iideysan صح ta koobaad waxa weeye wadanka markii uu ra'iisul wasaare Abiy qabsaday wuxuu ku baaqay in cafis la sameeyo cafis guud in la sameeyo in la wada shaqeeyo in hal meel la isugu yimaado in la wada tashaday taas bedelkeedii Mustafa wuxuu galay hebel dilay buu galay marka dadkii meesha bulshadii meesha ugu yimid buu qas galiyay siyaasadii maartay deegaanka ee haday doonto ha waxmaata oo maartay dhaliil fara badan oo maartay la tabay hal haad laakiin waxay ahayd inuu intuu maati uu boardka uga jafo uu tin ilaa cirib dadka qiimeeyo shaqaalaha la qiimeeyo كابينيgiisuna uu noqdaan kaabini aan qabiil lagu soo xulan marka aanu Mustafa waxaan qabaa kama uusan faa'iideysanin way hoos martay waana ta ilaa hadda iyo maanta maartay isaga meesha uu ka dhawtunaya waa taas weey bulshadii lama uusan tashan ilaa hadda shir wada tashiyo shacabka ah oo uu leeyahay maartay dhaleeshu halkan ay ka jirtay muddooyinkii 27 sano halkan aan ka saxno hogaamintii noocaas deegaanka soo martay waxaan qaladay waxaan aan saxaynaa muuna samayn la tashiga uu sameeyay wuxuu ahaa inuu urur siraaj leeyahay boorso uu ku watay unbu noola yimid team isaga iyo Nairobi ka yimid baa meeshii qabsaday waxay noqotay in teamkii hore meeshii jiray in team kale uu qabsado bay noqotay marka hadda waxaan u maleynayaa anigu haddii aysan iyagu ay meesha aysan maartay siyaasadda meesha uu Mustafa uu ku wado uu sidan ku sii wado inaysan waxba iska bedelayn ta kaleete ay xagga fursadda anu aan qabay inuusan weli uuna ka faa'iideysan waxa kamid ah oo la maalin kasta uu caydsanaya caydsigaasina wuxuu keeni doonaa in la isqordoofo oo maartay la isqoonsado gacan ka hadal la isu bedelo keeni doona hadduusan Mustafa ka faa'iideysanin
fursadda dahabiga isaga soo martay waayo oo laf 27 sano ee deegaanku hadda jiray marka laga tago Cabdullaahi Maxamed Saadi iyo Xasan Jire marka laga tago labadii madaxweyne ugu horreeyay waxay hayeen caqabadaha ugu waaweyn ee deegaanku horumar laabay hayeen taasna ilaa hadda Mustafa kamuusan fayeysan dagaal toos ah oo bareer cad buu kula jiraa marka waxyaabaha ugu badan ee Mustafa uu iska fayeysan isbedelkii dalka ka dhacay deegaanka ONLF oo soo xarootay oo si nabadgelyo ah isaga iyo ONLF ay hal mar soo yimaadeen balse laakiin ilaa hadda aan la isla jaan qaadin يعني muuqata shacabkii deegaanka sii joogay de qof walba ama dambi ha galay ama yuu dambi galin shacabka tusaale qofka gosolay jooga shacabka inuusan dambi galin baa laga yaabaa laakiin waxa la rabay inuu Mustafa ahdaaftiisa siyaasadeed iyo barnaamijka siyaasadeed ka dhaadhiciyo dadka bulshada u yimid ka dhaadhiciyo xitaa siyaasiyiintii kale meesha sii joogtay shaqaynaysay ka aan dambiga galin inuu kasbaday ahayd muusan kasban dhammaan wixii meesha jooga dhan way soo raacay totally marka Mustafa waxaan qabaa anigu inuusan weli كمون فايسن اوكي كمون فايسن وقتنا وكدعي وقتنا وكدعي qofku ugu badnaan waxa caalamka la siiyaa 100 maalmood baa la siiyaa 100kiisa maalmood ugu horeeya yaa la qiimeeyaa oo la yiraahdaa 3 bilood iyo 10 ka cashi hebel muxuu ku qabtay yaa la yiraahdaa laakiin 18 bilood oo kursiga ku fadhiyay inuusan wax weyn qabanin ma loo qaba اوكي aad baa maasantahay isla su'aashaas ayaa Adeer Xasan Jabhad ayaan weydiinaa Adeer Xasan oo may maqashaa si fiican su'aasha hore ugu soo falanqeynteeda horta Mustafa sida saaxiibada ay sheegeen kama unan faa'iideysan fursadda Mustafa waa nin aqoon ahaan dhisan weeyi nin markuu activistiga ahaa waxaan akhriyi jiray qoraaladiisa uu ku soo qori jiray Wardheer News on aad ku xidhanahay guddigiisana boardkiisana ka mid ahaa nin fikrado fiican iyo dadaal badan wax soo qori jiray buu ahaa wax badan tilmaamo badan bixin jiray oo aqoon-yahana buu ahaa wuxuuna yimiday waqtigii oo man yahay oo nin dictator oo waalan oo madaxda xafiiska intuu ugu taga garaaca ayuu xukunkii Mustafa yimiday isbedel dadkuna way u oomaneen dhalinyaro waa la keenay yes anigu ma raacsanay yes intaas way jirtay hase yeeshee maadaama nin aqoon-yahana ahaa maadaama nin dibadda ka joogay systemka uu ahaa uu ka faa'iideysan kari lahaa wuxuuna u adeegsan kari lahaa his advantage iyo dadka dantooda u adeegi kari lahaa Mustafa taama u raacine Mustafa horta sida dadku ay isku raacsan yihiin waa nin aad u fudud oo aan waxba dhageysan waa nin talada dadka aan qaadan waa nin mataqaanaa ku adagtiisa mana jira adduunkan cidtiisa ku socon kartaay gurigaaga ayaanan dhismayn oo reerkaaga jirayn haddaad xaaskaaga aad la tashan weyda xataa isaga oo qoomiyad dhan oo dhibaataysnayd oo dhibaatooyin guud oo Itoobiya ka taagnay kuwa gaar iyaga oo hobe ay haysteen soo galay aqoon-yahana ahaa inuu ka faa'iideystay ahayd uu u maro dariiqa saxda ah inuu dadka la tashado uu cadeeyo in la keenay oo boorso lagu keenay waa la keenay laakiin wiilkiina aan ahay inuu yiraahdo ahayd inuu dadka Soomaalida ugu qabtay ahayd inuu kulmiyo inuu aqoon-yahan iyo culimo iyo waxgarad kulmiyay ahayd in halka lagu dhisay sida uu cabsiya sheegay la tashado maxay naga khaldamay say wuxuu khaldameen maxaan halkeen ka bilownaa la isla garto marka kadibna sida uu dawlad ku dhisay ahayd dawladda uu dhisanaysan markii horeba sheegay waxa uu ku dhisay yaa uu cabdi xidhay bari yaa cabdi ka orday yaa cabdi necbaa yaa waxaasuu ku dhisay taasina waxay keentay maamulkiisu inuu noqdo maamul fadhiid ah aanan dalka ka hirgelin ee dadkii isku wada haystaan qabiilooyinkii isku wada haystaan la isku wada khilaafsan yahay waxay ahayd inuu ku dhisay ahayd merits daacadnimo meritskiisu inay noqoto ahayn cabdi maad necabtahay mise cabdi baad jeclayd dadkiina inuu shaabad ku wada dhufta ma ahayn in arrintu tala Soomaaliyeed oo Soomaali oo nuxur Soomaaliyeed la inuu wax ku dhisay ahayd ma aynan dhicin waxyaalaha Soomaaliyeed haystay waxa kamid ahaa oo dadku mar walba ka cabanayeen waxa kamid ahaa oo dhibaatooyinka taagnay maamul xumaa kamid ahayd service in wax ka qabtay ahayd colaadaha dalka ka jiray
colaadihii inuu wax ka qabtay ahayd anse colaadihii wuu uga sii daray oo kii horaaba si un looga gagabanayo bilow qoomiyadda soomaalida u heli lahaye isagu wuxuuba noqdayba ninka ka jawaabi waaya iyadoo magaalada Jigjiga uu jooga meydka la keenayo maalin walba 10 qof 15 qof la keenayo xataa telefoon u diri kari waayay ma ahayn inuu ciidan diro ciidankaasi uu dad kale qoomiyad kale oo Soomaalida leeynaysa uu u dagaalamo hadduu ciidan diro dadkii difaaci waayay xataa inuu arrin iyo sharci dawladeed ku difaacay ahayd ma aynan dhicin kama faa'iideysan service-kii dadku u baahnayeen ma unan qaban kama faa'iideysan cadaaladday dadku u baahnayeen ma aynan helin kama faa'iideysan dadkii ma dhageysan kama faa'iideysan ururkii ONLF oo hubka dhigay oo walaalihii ah oo dadkoogii ah oo 34 sano kadib ay duurka ku jireen 24 sano duur ku jireen kadib dalku soo laabtay inuu isla markii gacmaha isqabsadaan ajenda Soomaaliyeed ay wada jeexdaan soo dhaweeyo ayay ahayd intaasi midna ma dhicin marka waxa uu uga faa'iideystay personal interest isagoo eeganayo shakhsiyadiisa isweyneynaya inuu boorto intuu qadiyadii Soomaalida ku qaato oo ama bahradaar la tago ama abiy oo dadkii keenayba ay maanta necab yihiin kula gorgortoomo Soomaali baan jeebka ku wataa intaas uga faa'iideystay leeyahay taana waxaan aaminsanahay inuu ku guuldareysanayo Hassan Jabhad hal su'aal oo kale ayaan ku weydiinaya aad baa u maasantahay inaad si fiican u sharaxday oo macnaha aad u wanaagsan shacab badan ay daawan hayaan oo marka ay si fiican ay sheekadiina ay ula socdaan Rama TV waxay mar walba u taagan tahay oo hadalka shacabka Rama TV cid gaar ah ma taageersano cidna ma weerarto laakiin waxay jeceshahay inay shacabka macnaha wixii jira u ifiso isla markaana aqoon-yahamiinta yale ay ku martiqaado oo la falanqeeyo wax la isweydiiyo maxaa qaldan see lagu sixi karaa macnaha Rama TV macnaha mowqifkeedu nooca weey waa warbaahin dhexdhexaad ah warbaahintii u horeysay deegaanka ee macnaha dulmiga ka soo horjeesatay weeye waxa weeye sidoo kale waxaan jecel lahay inaan yaqiinta iyo meesha ay fartu ka qulmi anaan farta ku fiiqno dabadeedna laga hadlo oo waxa weeye cid ay qusaysaa ka hadasho adi Xasan ahaan حتى قف aqoonyahana qof deegaanka ka soo jeeda xog badan haya waxaad ka soo jeedaa tulli guuleed oo gumaadadii ugu macnaha ugu xumaa ay ka dhaceen dawladdu Mustafa markuu meesha yimid wuxuu soo booqday xerada Qoolaji wuxuu ku dhawaaqay muhiimadda ugu horeysa maamulkiisu uu xambaarsan yahay talaabada ugu horeysa ee uu qaadi waa 2 maalmood baa hadda joogaya markuu golihiisa wasiirada soo dhisay iyo Qoolaji wuxuu yidhi qorshaha anaga ugu horeysa waxaan ka dhiganay inaan dadkan barakacayaasha wax u qabano wuxuu yiri laba ayaan u kala saaraynaa dadkii xuduudaha ka soo qaxay waxaan sameeynaa buu yiri anagoo dawladda federaalka iyo maamulka Oromia iskaashanayna yaan nabadaynaynaa buu yiri deegaamadii ay ka soo qaxeen waanan celinaynaa dhaqaalihii ka burburayna waxa weeye dadkan way helayaan dawladduna way caawinaysaa oo inta oo lacag ay ugu tala gashay waa dadkii xuduudaha ka soo qaxay Baabili tulli guuleed iyo janacsani oo ilaa hadda la haysto iyo mooyaale iyo meel fara badan oo deegaanka dadkaas wuxuu yiri waa qayb dadka kale ee meelaha fogfog ka yimid ee balbaleyti ka yimid ee noqon karin deegaankana inay ku noqdaan aan rabin tirada badan deegaanka dhexdiisa ayaan dib u dejin uga sameeynayaa labada qodob ba wax fulay oo yaqiin oo hadda anaga Rama TV ahaan aan haynaa ma jirto marka adiga ka Xasan Jabhad ahaan maadaama deegaanka ka soo jeedo qof xogogaalana aad tahay bal wixii ka fulay labada qodob inaad wax macnaha shacabka uga ifisayaan ayaan u baahanaa bismillah horta walaalkay been kama sheegaya isagii xukuumaddiisaba waxay u muuqdaan dad ka xishoon inay been sheegaan hatta wariyihii shalay waad maqlayseenoo iskuul baa la isku haystay uu yiri maxay ahayd baan u malaynayaa su'aal ay wariyeen baa jira wuxuu ahaa bank blood bank baa ahayd baan u malaynayaa banka dhiigga oo laga dhisayay fiiq baan u malaynayaa isna nina yiri waa la dhammaystiray
ninna yidhi ma bilaabmin oo wariyahaya isagu isku celiyeen baa jira waxyaalaha aan la yaabo waxa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka kililka aadan faarax oo madaxweynuhuna ka daba yidhi waxay yidhahdeen 720,000 oo qaxooti ah ayaanu dib u dejin u samaynay bay yidhaahdeen subxaan allah ilaahay in laga baqo arrintaasi 720,000 ma shayaadiin bay ahayd u sameeyeen dadkii baabili joogay ama quluju joogay sidii bay u joogaan international xero adduunka laga wada og yahay oo si caalami loo og yahay hay'ado caalami ay tageen weeye dadkii sidii bay u joogaan awood uma leh Mustafa inuu Oromo kala dibaaqtamo kala hadlo oo uu yiraahdo war dadkii balbalayta dhulka dadkii ugu ladnaa bay ahayd berigii jabhadahan anagu dhulka ku dhawaan dadkii ugu ladnaa ee deegaanka deganaa bay ahaayeen asandooyin bay lahaayeen geel bay lahaayeen beeray lahaayeen dadkii ku tiirsanaa dhaqaale ahaan ay u shaqayn jiraan maanta dhulkooda iyaga haysta iyaga waa la soo qaxiyay dadka Soomaaliyeed intii la xasuuqay ma intii kale in kala meeshii ku harsan oo la haystayaala oo hantidoodii la dhacay oo geeloodii la dhacay oo beerahoodii la qotay oo xabsi guri meeshii ugu jira kalama hadli karo oo kama hadli karo taasi wayba fog tahay kuwan duleedka jigjiga lagu xasuuqayay ayuu horena uga hadli waayay gacanna uga geysan waaysan hadda ka horba hadda sheegay dadka qaxootiga ee barakacayaasha haddii 720,000 halka ay dejeen dawladdaasi inay sheegtaa loo baahan yahay shalay madaxweynuhu wuxuu kaluu yiri oo aan la yaabay 450 iskuul baan dhisnay buu yiri bal dadweynaha na dhageysanaya ee gobolka Somali State arinta waxa ka yiraahdaan haddii ay iduna garanayso inta iskuul ee ay dawladdan Mustafa intii la jiray anagu iskuuladu maana ognahay iskuulo la dhisay haday jiraan ama MCH la dhisay haday jiraan arintaasina kulay dawladdu waxaan u maleynayaa inay Mustafa wuxuu dhalinyaradii wuxuu ahaa ku soo baxday waxaan la yiraahdaa multimedia ama baraha bulshada waxaan u maleynayaa inay arintii uu ka noqotaan u maleyn in waxa la yiraahdaa warbaahinta inuu ku sheego warar aanan runtii la hubin baan u maleynayaa in warkaasi ahaa ma qaba anigu ilaahay ka cabsanaya in 450 iskuul la hirgeliyay intaan ka warqabo deegaanada aan ogahay degmada Tulluguuleed baa waxa ka burburay iskuuladii oo dhan baa ka burburay 35,000 oo arday ah degmada ka rajistar garaysnayd intaan dagaalku dhicin oo dawladii hore maamulkeedu jiray maraan July 2017 aan wadanka joogay oo wasaaradda waxbarashada tagay waxa la ii sheegay 35,000 oo arday ah degmada ka jirta maanta 2,000 ama 1,000 arday oo dadkii degmada iskuul maanta 3 sano u dambeeyay ma aynan aadin 500 xataa ma aynan aadin iskuuladaas inay burbursan yihiin baan ogahay deegaanada kale oo dhanna inay sidaa yihiin baan ogahay marka waxaan aaminsanahay Mustafa iyo xukuumaddiisu inay ku dadaalayaan inay waxa la yiri beenta marka lagu celceliyo hadii 7 jeer aad been sheegto oo ku celceliso marka dambe run bay adig kula ekaataa qudhaada moogta oo waxaad iska dhaadhicin wixii aad sheegi jirtay inuu run ahaa marka inay caadaysteen baan u maleynayaa dadka misleading inay ku sameeyaan dadku wax service ma haystaan Mustafa awood iyo karti midna uma la inuu Oromo la dibaaqtamo inuu yiraahdo dagaalka dadka aad ku haysaan joojiya shaleedana u dambeysay oo dad baa jinacsan agteeda lagu laayay Soomaali ah baa lagu laayay dagaalku uu socdaa ciidamada paramilitariga Oromada ee millionska ee tababaratay dhulka u soo direen dadka iyagu protection dawladeed ma haysto mid federaal ma haystaan meel ay joogaanba dadka iyagu dib badan bay dadka Soomaaliyeed ee deegaanadaasi qabaan dadkii balbalayti laga soo qaxiyay iyagoo hantidoodii la haysto intii kale meeshii maxaabis yihiin bay jiraan kuwii lagu laayay awaday dhiigoodii ragii qubay iyo kuwii qubay way joogaan lama magarsa wasiirka gaashaandhigga Itoobiya kamida nin criminal ciidamada Itoobiya inuu xukumo oo Cabdi la mid ahaa waa nasiib darro oo lagu raacsan yahay waliba moogtahay
oo waxba laga oranayn haddii ay tahay markaa mahma axmaar oran jirtay anu ma aqaanay lichu kamaaya abahu daanya bay malaha oran jiray wiilkii yaraa ee isagu wax boobi jira aabihina daanya maxkamadda joogay hadday aad iga raali ahaado quladina afxabashka taqaana haddaan si khaldan u idhi waxa weeye haddaanan Mustafa la xisaabtamayn kuwa soo duulaya ee jinacsani iyo meelaha kale askarta kaga soo bixinay dadka xasuuqaya hadduuna awood u lahayn hadduunan dadkii deegaanada ka soo qaxo 3 sanadood banaanka jiifa unan buulla loo dhisin deegaankoogina aan lagu celin karin oo halkii yaalaan haddee waxa uu madaxweyne iyo mas'uul ka sheeganayo anu garan maayo walaalo ma aha mar deegaan gaar ah inuu hadlaaye qaxootigaasi ilaa wuxuu daadsan yahay gobolka Liibaan meel ka saalaxaad buu daadsan yahay meel kastuu daadsan yahay dadkaasi Soomaaliyeed way dhibaataysan yihiin ehel iyo dawladna ma haystaan dawladda Itoobiya oo shaarka kala badbadanayso annaga hadday axmaarayna haysatayna gumaadaysa iyo haddii Tigray haysto oo gumaaday hadday Oromana haysato oo gumaadayso ruugu ma kala ilka qabooba intuba cadaway nagu yihiin wayna nalaynayaan markaas sidaa leeyahay dadka kuma dhiiri gelinay dad ama Itoobiyaan ama axmaara ama Oromo oo dambi lahayn in si xun loola dhaqmo ama dib loo geysto kuma talinayo kuna talin maayo waayo dadka bilaadanka in la xurmeeyo ayay u baahan yihiin laakiin annaga dhulkayaga xadkii hawaasaha maanta in lagu gorgortamo inay jinacsani dhul Oromo tahay uu aqoonsan yahay Mustafa jinacsani inay Oromo leedahay ama dhul Oromo tahay uu aaminsan yahay waa dambi wax la qaadan karana ma aha arrintaasi kolley haddee nimankii ONLF iyo raggii taariikhda halgankii qor isku dhiibka ahaa ee halgankii wadayna waan arkaynaa oo Mustafa weerar buu ku hayaa isagoo axmaaro noo jiidayana nimanna wuxuu ku eedaynayaa inay magac qabiil wataan isaguna axmaaro iyo waqtiga xillisaasuu nagu celinaya arrintaasina waa isku qeyban laadahay aniga shakhsi ahaan waan ka yar baxay topiga intaas raali ahaa marka taas oran lahaa aad baa umahadsan tahay barnaamijkii Rama TV oo inoo soo bilowday muddo hore oon kaga ku falanqeynayna arrimaha deegaanka xuquuqul aadamaha iyo waaqiciga ka jira deegaanka wuxuu soo maray iyo arrimo fara badan oo ay marti noogu ahaayeen xasan ducaale oo xasan jabhad loo yaqaano ahna xubin hore oo UWSL ka tirsan iyo mahad oo ka tirsan macadka kahortag iyo musiibooyinka degmada dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan degmada Dhanaan iyo gudoomiyaha xogayaha anidaahe Siraaj ururka Siraaj Mustar Absiye oo marti noogu ahaa waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo dood wanaagsan iyo axadda soo socota axadeeda insha Allah dadweynaha ka soo qayb galay barnaamijkan daawanayana aad baa u mahadsantihiin waxaan isku ognahay inaan idin soo bandhigno waaqiciga jira isla markaana idinka aad ka doodaan waxaan annaga idin goynaynaa ma jirto cidna ma ataagayno cidna kama horimanayno laakiin fagaaraha dooda ayaan idin soo bandhigi doonaa waaqiciga jira idinkaana falanqeyn doona insha Allah qaabka ugu habboon baynuna ku falanqeyn insha Allah السلام عليكم وعليكم السلام أبدا ما سنتي